waxaana wanaagsan ku soo dhawaada wararka dunida iyo Soomaalida qodobada aad ku daawan doontaan waxa qaybka Somaliland oo lagu casuumay laba bandhig oo waaweyn xilli Soomaaliya gabi ahaanba laga reebay labadaasi bandhig maxay yihiin halkay ka kala dhacayaan yaa ka qayb galaya iyaysa tahay cid ku casuuntay Somaliland xogtan ayaan rabaa inaan kula wadaago soo dhawow muuqaalkan like sar sidoo kalena soo raaco subscribe na soo dhe qodobada kale aad ku daawan doontaan daawadayaal waxa qaybka hooyo reer Somaliland oo ganacsata oo markaasi ka farxisay ciidanka Somaliland ee militariga haddaba maxay u qabatay arin ilaa iyo saacadihii ugu dambeeyay aad ay ula dhaceen dadka reer Somaliland ayaa rabaa inaan halkan kugu wadaago dhanka kale baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta jiha wareer xoogan u galay xildhibaanada mucaaradka ay warbaahinta la hadleen maxay tahay dhibaatada ka taagan baarlamaanka Soomaaliya oo isbuuciisii saddexaad gabi ahaanba furmila qodobadaas iyo kuwa kale waxyaabihii nagu soo kordhay ayaan rabaa inaan halkan kugu wadaago xilli Mareykanka iyo Iiraan xaaladooda ay tahay meel xasaasi ay marayso muuqaalkan like saar saaxiibada la wadaag subscribe na soo dheh haddii aad like noo saartid waxay ka dhigan tahay inaad saaxiibadana noogu dhawaad ka mid tahay inta ka sokow haddii aan ku bilowno saaxiibayaal Somaliland ayaa lagu daray amaba loo magacaabay markaas inay qayb ka noqoto laba bandhig oo waaweyn oo ka dhacaya dunidan waxaan ognahay in 26 December Somaliland ay aqoonsigii ugu horeysay ka heshay mid kamid ah wadamada dunida caalamka tan iyo markaasina waxaa muuqatay in Somaliland kor u kac weyn ay samaysay warar aan helayno ayaa tilmaamaya in Somaliland ay ka qayb galayso bandhig markaas loo qabanayo dhammaan wadamada xeebaha leh ee qaaradda Afrika kuwaas oo ay garwadeen ka yihiin dawladaha Mareykanka iyo Ingiriiska warar hoose aan helayno ayaa tilmaamaya in ay ka qayb galayaan bandhigaasi wadamada ku tirsan badda Mediterranean-ka badda Atlantic-ka badda Hindiya ilaa iyo badda Cas ilaa iyo gacanka cadmeed Somaliland ayaa bandhigan lagu soo daray iyadoo gabi ahaanba laga reebay Soomaaliya wararku waxay sheegayaan in bandhigan ay ka qayb galayaan wadamo ay kamid yihiin Morocco, Gabon, Senegal, Nigeria, South Africa, Tanzania, Kenya, Malawi, Djibouti iyo sidoo kale Somaliland Masar ayaa qayb ka iyadoo markaasi dhammaan wadamadaasina ay ka qayb galayaan bandhigan weyn ay garwadeenka ka yihiin dawladaha Ingiriiska iyo sidoo kale Mareykanka bandhigan oo laba sanadlaah ayaa la sheegayaa in Somaliland sanadkan ay ka qayb galayso iyadoo markaasi si rasmi ah loogu casuumay waxa muuqanaysa in markaasi dhanka diblomaasiyadda Somaliland ay noqoto mid aad u sareysa tan iyo wixii ka dambeeyay aqoonsigii Somaliland ay ka heshay Israel 26 December ee sanadkii la soo dhaafay 2025 gabi ahaanba Soomaaliya waa laga reebay bandhigan iyadoo markaasi dhanka iyo wasaaradda difaaca iyo wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka dabiiciga ah ay markaasi u direen codsiyo rasmi ah si ay ugu qayb galaan bandhigan weyn laakiin ganafka ayaa lagu dhuftay oo gabi ahaanba waa loo diiday waxaana hadda muuqanaysa bandhiga iyo wacdaraha weyn ee Somaliland ay la soo shirtagayso sidaan idin sheegnay bishan January ama bishii January ee dhamaatay Somaliland garaafkeeda ayaa kor u kacay iyadoo wadamo badan ay hadda ka fikirayaan inay aqoonsi siiyaan Somaliland maadaama garaafkeedu uu noqdo mid aad u sareeya sidoo kale tana uu yahay wadanka kaliya ee qaaradda Afrika aad looga hadal hayo marka aad eegtid warbaahinada caalamka waxa xusid mudan in Somaliland bishii ugu dambeysay ay dhaqdhaqaaqyo weyn samaysay iyadoo ay xusid mudan tahay in Dubai ay ka qayb galeen bandhig weyn oo markaas ay ka qayb galayeen wadamada ugu waaweyn dunida oo ay kamid yihiin Ingiriiska, Mareykanka, Sweden, Imaaraadka Carabta iyo wadamo kale oo waaweyn kuwaas oo dhaqaalahaan aad u kobcay Somaliland lagu casuumay bandhigaasi gabi ahaanba Soomaaliya waa ay ka maqnayd laakiin warar hoose aan helayno ayaa sheegayay in Soomaaliya isku dayday in bandhigaasi la sarkiisa ay ka qayb gasho kaasi oo markaas looga hadlayay dawlad wanaaga taakulaynta iyo sidoo kale in la garab istaago dhammaan wadamada soo koraya iyo in la maal gashado si kastaba ha noqotee bandhigan marka laga tago waxaa jira bandhig kale oo weyn oo ka dhacaya Indonesia kaasi oo laga hadlayo dhaqaalaha buluuga iyo kheyraadka badda Soomaaliya wajigii koobaad ay ka qayb gashay iyadoo ay ugu qayb galeen agaasimayaal ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga laakiin wajigiisa labaad xog aan helnay waxa ay sheegaysaa in gabi ahaanba Soomaaliya lagu casuumin oo markaasi jasiiradda Bali ee Indonesia ama magaalada Bali ay ka qayb galayaan mas'uuliyiin Somalilander ah kuwaasi oo tagi doona halkaasi Somaliland ayaa hadda muuqanaysa in markaasi ay ka qayb galayso barnaamijkaasi weyn oo laga hadlayo dhaqaalaha buluuga iyo sidoo kale kheyraadka badda iyadoo madaxweynaha Somaliland dhawaan uu tilmaamay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu noqdo wadan kamid ah wadamada dunida ka jira sidoo kale tana ay Somaliland ku faanayso waxyaabaha ka mid yihiin kheyraadka dabiiciga ah kalluumaysiga macdanta iyo qodobo kale oo markaasi madaxweynaha uu tibaaxay
haddaba qodobkaasi wixii artidaada qaybta hoose arti dhibashada nagu reeb markana hooyo reer Somalilander taasi oo ah maalqabeen amaba ganacsato ayaa ugu deeqday ciidanka Somaliland markaasi dhul weyn ay ugu tala gashay inay halkaasi degaan hooyo Aamina Ciiga Dhoobi maamo lagu magacaabo oo kamid ah haweenka haldoorka ah iyo oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ee magaalada Ceeri Gaabo ayaa dhul ugu deeqday ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland hooyo Aamina ayaa sheegtay inay qayb weyn laga qaato horumarka ciidanka maadaama ay tiri ay kamid yihiin kuwa lagu gamco habeen iyo maalinba hooyo Aamina ayaa aaminsan in ciidanka militariga la garab istaaga ay qayb ka tahay in markaasi ciidanka moralkooda la dhiso sidoo kale tana ay qayb ka tahay horumarka ciidanka waxa ay sheegtay inay yihiin ciidanka Somaliland kuwa ay ku gamaan habeen iyo maalinba haddii aysan la'aantood ama aysan bajirin aysan dhici lahayn amniga Somaliland maanta ay ku noolaanayso dhul weyn ayaa la siiyay inkastoo cabirkiisa si rasmi loo sheegan haddana hooyadan Soomaaliyeed amaba hooyadan ka soo jeeda dhulka Somaliland ayaa markaasi ciidamada militariga Somaliland dhulkan ugu deeqday iyadoo mas'uuliyiin sarsare oo reer Somaliland ahna ay arrinkan aad ugu ammaaneen tallaabooyinka ay qaaday hooyadan Soomaaliyeed iyadoo oo markaasina lagu dhiirigeliyay in haweenka kale ee reer Somaliland ay ku daydaan hooyo Aamina oo markaasi tallaabadan weyn qaaday qodobkaasi wixii artidaada saaxiib qaybta oo saartay dhibashada nooga reeb mar kalena waan ku xasuusinayaa haddii aad like noo saartid waxay ka dhigan tahay inaad saaxiibkeena noogu dhow tahay like-tana dabcan adiga ma dareemaysid laakiin wax badan ayay noo qabanaysaa intaasi ka sokow haddii aan eegno markan dhanka Soomaaliya magaalada Muqdisho ayaa xaalad adag gashay kadib markii baarlamaanka Soomaaliya maalinkii saddexaad ahna isbuucii saddexaad markaasi ay dhibaato weyn ka dhacayso iyadoo markaasi ay isku dayayaan guddoonka baarlamaanka ee magaalada Muqdisho inay meel mariyaan dastuurka Soomaaliya kaasi oo qabyo qoraal ah cutubkiisii afraad ayaa la doonayay maanta in la akhriyo laakiin gabi ahaanba xildhibaanada mucaaradka ayaa hor istaagay iyadoo dawladda Soomaaliya booliiskii ugu badnaa ay soo dhoobtay xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho halkaasi oo labada aqal ee baarlamaanka ay ku shirsanayeen guddoonka baarlamaanka ayaa khudbad iyo waraaqo soo qoray ugu dambeyn gilinkii dambe ee maanta waxa ayna sheegeen in labada aqal ay ka arrinsadeen dhamaystirka baarlamaanka gaar ahaan cutubka afraad laakiin xildhibaano xanaaqsan oo gilinkii dambe ee maanta ayagana shir jireed qabtay ayaa sheegay in guddoonka baarlamaanka waxa uu ku dhawaaqay ay tahay wax laga xumaado xaaladda maanta baarlamaanka ka dhacdayna loo wada jeeday guud ahaan saxaafadda ayaa gebi ahaanba loo diiday inay gudaha u soo galaan xarunta baarlamaanka iyadoo markaasina ay xildhibaanada qaar isticmaalayeen barahooda bulshada sida Facebook iyo TikTok halkaas oo laaf ay ka soo galayeen maadaama gebi ahaanba warbaahinta maxalliga ah halkaas loo diiday saaxiibayaal qodobkaasi wixii artidaada qaybta oo saartay dhibashada nagu reebay markana dad badan ayaa isla dhex maraya in madaxweynaha Soomaaliya ee haddan jooga Xasan Sheekh Maxamuud uu markaasi u baahan yahay in guri weyn loo dhiso Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalinkii shalay ahaa guri weyn waxaa looga xarig jiray magaalada marka goob 7 kiiloomitir u jirto oo lagu magacaabo Ceel Jaalle tan iyo markii gurigaasi xarig laga jaray waxaa soo baxayay dad badan oo ayagana tilmaamaya in markaas uu baahan yahay Xasan Sheekh Maxamuud in guri weyn looga dhiso mid kamid ah koonfurta magaalooyinka koonfurta Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay aaminsan yihiin in dalka nabad uu ka dhigay sidoo kale tan magaalada Muqdisho uu nabadeeyay waxayna aaminsan yihiin in Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay mid kamid ah madaxweynayaashii ugu saameynta badnaa ee Soomaaliya soo mara ayna tahay in qasri weyn oo ka weyn kan Farmaajo loo dhisay loogu taago mid kamid ah magaalooyinka koonfurta Soomaaliya haddaba arrinkaasi qixii artidaada qaybta oo saartay dhibashada nagu reeb markan haddii aan eegno Iiraan iyo Mareykanka xaaladooda ayaa mid xasaasi ah iyadoo madaxweynaha Mareykanka oo hadlayna uu tilmaamay in Iiraan sidii hore ay ka jilicsan tahay sidoo kale tan ay soo dhaweynayaan wada hadallada ay la galeen Iiraan waxa uu sheegay in Iiraan sidii hore ay ka jilcan tahay heshiis walba oo loo soo bandhigana ay qaadin doonto heshiiska aan gali doonana waxa uu ka wanaagsanaan doonaa buu yiri kii uu la galay madaxweynihii hore ee Obama sanadkii 2015 waxa uu sheegay in gabi ahaanba heshiiskaasi uu baadil lahaa laakiin midka ay la gali doonaan uu markaasi wax walba ku riixayo waxa uuna sheegay in ciidamadii ugu badnaa oo markaasi ay ka mid yihiin maraakiibta dagaalka diyaaradaha dagaalka ay hadda ku sugu yihiin buri biyaha Iiraan isla mar ahaantaana guud ahaanba qariidadaasi ay gaaf wareegayaan wada hadallo xasaasi ah ayaa waxay ugu socdaan labada dhinac dalka Cumaan iyadoo laga arinsanayo in markaasi Iiraan iyo sidoo kale Mareykanka ay heshiis rasmi ah gaaraan dhanka kale Israa'iil mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in dadaalo dheeri ay ku bixinayaan in wax heshiis aysan gaarin Mareykanka iyo Iiraan taasina ay ayaga ka soo horjeedaan aad iyo aad u maasantahay inta la soo gaartay muuqaalkan like sar saaxiibada la wadaag ma soo raaco qayb ka noqo haddii aad like noo saartid hore ayaan kugu sheegay waxa tahay saaxiib wanaagsan la soco wararkeena soo socda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu